nahilka ilaahay anaga dhan naga wada baxday ilaahay u naxariisto waxaan u ahaa gabadh abti ilaahay jannatul firdaws ilaahay ka waraabiyo kulay waa dhacad xanuun badan waa gabar 18 jir ah sida markana loo xaqiijiyay kulay waxa nagu leeyiri aniga goob joog ma ahaynin in toorey lagu soo weeraray oo hal nin uu weeraray alxamdulillah uu tooreedii ninka uu ku duray ilaa 4 meel ilaa 3 meel la tilmaamay marka kulay hadafkiisa موبايل dadka tilmaameen laakiin mobilka kama aysan qaadanin marka ma naqaan kulli insha Allah waxa codsaneynaa in cid alle cidi oo barnaamijkaas wax ka qaban karto sida dawladda federaalka Soomaaliya in ay arimahaas baaritaan ku sameeyso adeegii markay soo qaadatay soo laabatay xaafadii ku soo socotay marka iyadoo xaafadda ku soo dhawli soo gaarin markay jidka ka soo leexad soo maraysa meeshaas yaa kulli ninku meesha uga soo baxay wixii dhaxmaray iyo qaabka uu la hadlay cid garanaysa ma jirto Allah baa yaqaan laakiin mididii ayuu dheer meel uga dhaftay oo uga tagay xataa mididii iyadoo ka taagan uga tagay xataa mobilka kama uusan qaadan Allahu a'lam wuxuu uga jeeday danta oo lahay cid soo dirsatay garan mayno laakiin mididii uga tagay way uu ka tagay dad way ka soo carartay yaani dad dariska ah oo meesha marayeen yaa arkeen mididii xataa iyada gacanteeda iska bixis iyadoo soo cararto isla saxaafadda naf la gaar waaba qanbala fay dhahday way dhacday dad meesha maraayo qof asna xanuunsan waday wiil meesha maraayay yaa qaaday ceelasha isbitaalka yaa la geeyeen isbitaalka ku nafaxda marka cid insha Allah garanaayo